السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت كحرن كنالك وايشك ومركله يا muuqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa afar qaab oo ku xoojin karto xasuustaada marka ay qofka ka lunto xasuustii waxa dadka la xiriirinaya daada balse cilmi baarisyo ayaa muujinaya in xasuus la'aanta ay ku badan tahay dhalinyarada arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay qaabka nolosha qofka ayaa kaalin weyn ka qaata xasuus la'aanta waxayna ka bilaaban kartaa qof 20 sano jir ah xitaa walwalka waxbarasho la'aanta fadhiidnimada dhiigkarka sonkorta ayilka iyo sigaarka dhammaan ayaa qayb ka qaadan kara in qofka ay ku dhacdo xasuus la'aan walwalku waa arrinta ugu weyn ee sababta u ah in xasuusta ay ka lunto da' kasta oo qofku uu yahay dabcan qaabka nolosha ee casriga ah wuxuu sababaa sare u kaca walbahaarka keeni kara xasuus la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale xanuunada maskaxda oo soo dhawaada marka xasuus la'aanta iyo hilmaamku ay bataan haddaba sidee ayaad u xoojin kartaa una joogtayn kartaa xasuustaada lambar 1 farsamada iyo isku xirka qaybta xasuusta gaaban ee maskaxda waa meesha ugu badan ee laga dareemo ilowshaha inta badan dadka waxay qaybtaas maskaxda ku hayn kartaa 4 ilaa 7 arrimood muddo yar oo gaaban tusaale isku day inaad xifdido diiwaan dheer oo ah waxyaabo aad suuqa ka soo iibsan rabto waxaan bilaabaynaa in ay dib kugu noqoto xasuusta inta kale haddaba si aad u xoojiso xasuustaada qaybta soke ee maskaxda si ay ugu gudbiyo qaybta xifdinta waxaad u baahan tahay inaad la timaado qaabka xoojinta xiska iyo isku xirada labada qaybood waxaad samayn kartaa inaad isku xirto dhammaan waxyaabaha isku dhow kadibna warqad aad ku qorto markaa si fudud ayaad u xifdin kartaa una xasuusan kartaa cilmi baarisyo ayaa muujiyay in dadka ay bilaabi karaan in ay wax badan xifdiyaan haddii ay israaciyaan intii eray ee isleh ama isu dhowba qaabka labaad hal abuurka iyo is ururinta mala awaalkeena waa qayb si yaraanaya adeegsigeeda haddaba marka laga hadlayo xasuus la'aanta in lagu dadaalo sidii hal abuur wanaagsan loogu yeelan lahaa xasuusashada waa arrin muddo qaadan karta hal abuurka ama curinta waxaa dhaqaajiya xasuusta haddaba inaad joogtayso hal abuurka maskaxda sida xasuusta lambarada magacyada iyo walxaha waxay si weyn u kobcinaysaa maskaxdaada haddaba inaad abuurto sheekooyin isku xigxiga ha kuu noqdaan arrin joogto ah tusaale marka aad doonayso wax aad aragtay in aad xasuusato oo aadan ilaawin waxaad ka samaysaa sheeko isku xigxigta oo isku urursan si aad u qurux badan isugu tax qaabkan waxaa loo garanayaa hanaanka sheekada waxayna ka caawinaysaa inaad si isku xigxigta aad u xasuusato wixii aad soo xifdisay qaabka saddexaad sida muuqaalo tilmaaman inta badan dadku waxay xasuustaan sawirada iyo wixii lagu dul qoro marka la barbar dhigo xuruuf ama erayo meel isaga qoran haddaba in wixii aad aragto ama qoraalada iyo xuruufta aad u sawirato sida muuqaal waxay xoojinaysaa xasuustaada si gaar ah marka aad tilmaamto sida muuqaal ama sawiro isku xigxiga maskaxda waxay u kala qaybinaysaa kuwa baahan in la xifdiyo iyo kuwa kale haddaba inaad eegto muuqaal kadibna aad ku xirto erey ama wax aad doonayso inaad xasuusato waxay xoojinaysaa maskaxda waxaadna baranaysaa xirfad cusub oo qaabka xifdiska ah arrintan waxay xoojinaysaa fahamka xasuusashada waxayna kordhinaysaa qaabka xasuusta qaabka afraad ee aad u kobcin karto xasuusta maskaxdaada waxaa ka mid ah faro oo qaad vitamin B12 ka jirkaaga ku jira haddii aad dareemayso inay kugu adagtay in aad wax xasuusato ama xifdiso ama si joogta aad wax u hilmaamayso haddaba waxay noqon kartaa in jirkaaga uu ku yar yahay vitamin B arrintaas waxay sababi kartaa in qofka uu maskaxda ka xanuunsado ayna ku dhacaan noocyo ka mid ah waalida asaasiga iyo walbahaarka haddaba waa muhiim in vitamin B12 inaad qaadato vitamin B complex daawooyinka ka samaysan waxay si degdeg ah u soo celinaysaa xasuusashada sidoo kale cunista kalluunka kelyaha iyo hilibka cas guduudan ukunta burcadka ayaa wanaagsan xasuusta iyo maskaxda